nuxurka kulanka golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya ee maanta kulanka ku yeeshay aqalka ra'iisul wasaaraha uu ka degan yahay caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen arrimo ay ka mid yihiin ammaanka dalka howlaha horyaala golaha fulinta iyadoona intii ay kulansanayeen golaha wasiirada maanta ay meel mariyeen xeer hoosaadka howlaha golaha xukuumadda iyo in muddo 5 cisho ay la wareegaan xafiisyadii xukuumaddii hore kadib markii kulankii golaha wasiirada uu soo ilaaday waxa bahda warbaahinta la hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiwali Sheekh Axmed waxaana uu ra'iisul wasaaraha hoga tusaaleyay tilaabooyinka xukuumaddiisa ay damacsan tahay in ay ku dhaqaaqdo golahaas oo ka kooban sida aad ogtihiin wasiirada wasiir dawlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada maanta fadhigoodu wuxuu ku saabsanaa sidii ay xilku ula wareegi lahaayeen oo ay ula wareegi lahaayeen xukuumaddii hore wasiiradii hore iyo xubnihii xukuumaddii hore si wanaagsan bay ku dhamaatay waxaynu ku soo gabagabeynay in muddo 5 casho ugu badnaan gudaheed lagu soo gabagabeeyo hawsha xil wareejinta waxa kale oo runtii la qaadaa dhigay xeer hoosaadka uu ku shaqeynayo golaha oo muhiim u ah socodsiinta howlaha golaha ayadana waa laga niqaashay waxaana lagu gabagabeeyay in fadhiga soo socda lagu gabagabeeyo wixii mulaaxadaad ah ay xubnaha goluhu xeer hoosaadkaas ka soo jeediyaanna laga hadlo fadhiga dambe kadibna uu dhaqangal noqdo oo la adapt gareeyo Cabdi Casiis Ibrahim Axmed Okay TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho.